السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد بان idin rajaynayaa muuqaalkan kooban waxaynu kaga hadlaynaa haweenka hadalka ay kaga yimaadaan biyuhu. waxa laga yaabaa arintan ama dhawaaqan marka aad maqasho inaad aad naftaada aad ula yaabso ama aad istiraacdo waxaan wax macquul ma aha. laakiin way jiraan dhakhaatiirtuna waqtiyo badan bay ka hadleen intaana way ka hadlaan meel kastana way ku qoran yihiin. haweenkaas waxyaabaha keena ayaynu insha Allah xaaladaas ama marxaladda aynu kaga hadlaynaa. hadalka ay ku biyo baxaysaa waa kee? waa hadalka kicinaya dareenkeeda. iyadu markaas haweeneyda hadalka ku biyo baxaysa ma haweeney la soo guursaday oo nin baratay oo gogol iyo galma baratayba waa maya. haweeneydaana way noqon kartaa waxa kale oo ay noqon kartaa gabadhan weligeedii soo guursan. sababaha markaa dhakhaatiirtu ay u badiyaan waxa kamid ah sida caadiga ah horta dadku kala dareen badan yahay oo dhakhaatiirtuna taas iyagu si waadax ah ay u cadeeyeen. sababaha ay u kala dareen badnaadeenna waxyaabo badan bay dhakhaatiirtu sababeeyaan. qofku sida uu qaan gaaray, nolosha uu ku qaan gaaray, xilliga uu qaan gaaray iyo sidoo kale cuntada uu isticmaalo, firaaqadiisa iyo raaxadiisa iyo fadhigiisa iyo sida markaa aanu u fakarin iyo sida markaa dareenka laftiisa qofku isugu cariyo. oo dadka qaar baa maskaxdooda ay ka furan tahay in markaas haddii uu haweeneydin la hadlayo waxay sawiranaysaaba waxay isla galgalanaya. ninkiina hadduu gabadh la hadlayo waxaaba laga yaabaa isaguna inuu sidaa sawirto. waxa laakiin ay dhakhaatiirtu ay ku daraan in haweeneydaasi dhowr ficil ay samaysay. marka koobaad qofka inay si saayida u xiisaynayso oo dareenkeeda iyo hamadeeda ay u soo jeedisay. marka labaad inay ama jiifto ama markaas ay samaynayso inay markaa jidhkeedii qayb ka mid ah ay taabanayso. kuwaas ay dhakhaatiirtu sameeyaan. intaasi haddii ay dhacdo waxa ay tilmaamayaan in haweeneyda hadalka uu biyuhu ay kaga iman karaan. xataa iyadoo markaas aan xubinkeedii taranka si toosa aan farta ula tagin oo ficilkii foosha xumaay sigadaba aan samayn. yacni qaabkay u jiiftay iyo hadalkii ninkii la hadlayay iyo hadalka laftiisa oo markaa isaguna hadal dareenka kicinaya ahaa iyo markaas iyadoo wax sawiranaysa oo gaar ahaan sawiranaysa in gogol la samaynayo ama iyadoo indhaheedu ay wax soo arkeen oo haweeney wax daawatay ay tay waxyaabo badan bay u saabeeyaan. marka way ku iman karaan arintaas. marka waxa wanaagsan dhalinyartu marka ay shukaansanayaan maadaama khatarahaasi ay ka dhalan karaan ninkuna inuu si sareexana u sheekeeyo, haweeneyduna inay markaas iyaduna ay qaab fiican u fadhiisato oo waxaana aanay maskaxeeda gelin. intaasaan ku soo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.